عمرنا إلى هاي حق هاو فضيو ظاهرنا إلى هاي إن هكذا تستايسي وهاو شو إنه صوب طيب حلو ريتشون أكثر السلام عليكم ورحمة الله waxaa maantaas rasmi ah xilaalkii lagu kala wareejay iskuduwaha wasaarada xanaanada xoolaha kauumaysiga deegaanada gobolka Awdal iyo iskuduwaha cusub ee dhawaanta loo soo magacaabay wasaarada xanaanada xoolaha iyo kauumaysiga deegaanada gobolka munaasabada xafladda xilka ay kula wareegayeen labada mas'uul ayaa saaka waxay ka qabsoontay xafiiska maamulka gobolka Awdal waxaana munaasabada xafladda xil wareejinta goobjoog ahaa barasaabka gobolka Awdal duqa degmada Boorama iyo sidoo kale agaasimo waaxida ka socday wasaarada xanaanada xoolaha iyo kauumaysiga iyo sidoo kale badiba shaqaalaha kala duwan ee ka howlgala wasaarada xanaanada xoolaha iyo kauumaysiga deegaanada gobolka Awdal barabilaba waxa munaasabada xafladda xil wareejinta ka hadlay iskuduwaha wasaarada xanaanada xoolaha iyo kauumaysiga deegaanada gobolka Awdal daayir xanaan oo muddo dheer soo maamulay wasaarada waxaana uu ka xog waramay oo iskuduwaha hore ahaa waxaana ku wareejinayaa master Umar Abdullah Muhammad arkaan sharaxaad ka bixiyo shaqaalaha ugu fiican weeyaan waa shaqaale aad iyo aad u fiican oo aamina oo wixii dadka loogu dibana gaarsiiya waxaan filayaa sidii fiicneed ee aniga ila shaqayn jireen inay iskuduwaha cusubna ula shaqeeyaan haddii rabbeedu kolley aniguna meel ma tagay dawaan nila jooga odayn nila joogaan tilmaan iyo tarab intaas wixii ka dambeeyay waxa dhankiisa hadalka qaatay iskuduwaha cusub ee dhawaanta loo soo magacaabay wasaarada xanaanada xoolaha iyo kauumaysiga deegaanada gobolka Awdal Umar Abdullaahi isagoona dhankiisa isu taagay muhiimadda uu leeyahay xilku kulli maanta deegaanku xil u baan qaadayaa culays bay saarmaya kulliyina ducaan u baahanahay maanta ilaahay xilka inuu igu asturo daahiro ana aad u ixtiraam jirnay badan aan soo wada shaqeynay maantana meel aan naga tagay inuu aan la shaqeynaya wixii waa aragnimada wuxuu nooga aqoon badnaa baan ka kororsanayo oo mar walba daagtida joog doona aad baan ugu mahad celinayaa kullay barina qof kalun baa iman maantana daahir baa ka tagay aniga imid barina cid kalun baa iman waa sunnihii dawladnimo oo waa qorisku dhiibka insha Allah waxaan rajeynayaa halka uu soo gaarsiiyay Dr. Daahir Xanaano inaan ka sii anba qaado shaqaalaha wasaaradana aad baan u salaamayaa guntiga gabagabada waxa xafladda xil wareejinta ka hadlay agaasimaha waaxda shaqaalaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kauumaysiga Soomaaliland iyo sidoo kale barasaabka gobolka Awdal Maxamed Axmed Cali Timbar waxayna la dardaarmeen sidoo kale waxaan ku dardaarayaa in halkii wanaagsaneed uu daahir soo gaarsiiyay uu ka sii anba qaado kasi dardar galiyo shaqaalahana waxaan si xushmad looga codsanayaa in ay sidii ay daahir ula shaqeeyeen si lamida ay Umarna ula shaqeeyaan una soo dhaweeyaan in bedelkiisu inoo yimaado waanu sa ku hambalyeynaa waanu ku amaanaynaa hawshii uu gobolka u hayay iyo iskuduwaha hayay labadaba master Umar Abdullaahi oo inoo soo bedelayna marka hore waanu soo dhaweynaynaa oo soo dhaweeyaan lana insha Allah meel bay ku taagneed wanaagsan adna wuxuu noqon doontaa mid halka wanaagii kasi wadaan ku rajeynaa waan kugu ducaynaynaa inay xilka ku fududeeyo shaqaalihiina daahir marna odaybuudinaha marna iskuduwaydinaha maanta sanin idin leego iskuduwaydinaadin oo odaynimadii way ka yar baxaysaa meesha inkastoo idin la joogo meel idin ka tagaynin isku duubnidiini sidii ay ahayd wasaaradda qura ee aan sanqarka maqal bay ahayd laba is haystay iyo wax dacwoon iyo midna sidii hore iyo si ki wanaagsan oo hada maadaama nin qaadi kara idimina sidii wax ku soo kordhisaan mooyaane waxba ka dhimina guntiga gabagabada iskuduwaha wasaarada xanaanada xoolaha iyo kauumaysiga deegaanada gobolka Awdal iyo iskuduwaha cusub dhawaanta loo soo magacaabay waxa si rasmi xilaalka uu kala wareejiyay barasaabka gobolka Awdal Maxamed Axmed Cali Timbar wa Imraan Xuseen Aadan wararka telefishanka caalamiga Home Cable TV Boorama.